ilaahay idinkiis tabaaraka wa tacaala walaalayaal qof walba oo ka cabanaya helmaanka waxa loo yaqaana ama ilowga haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa u akhriyo helmaanka waa ka baxaya gaar ahaan qur-aanka suurad ka mid a ogow oo baro suuradda haddaad akhrisid shay kastoo kaa dhumay ama shay kastood hilmaantid biidnillaahi tabaaraka wa tacaala xasuustiisa ilaahay kugu soo celinayo suuraddaasoo kaa dhigaysa dadka qofka ugu caqliga badan uguna fahmada fiican uguna barakada badan qof kastoo ilaahay ku imtixaamay hilmaan waxaad ogaataa qof yahow in qur-aanka kariimka ay ku jirto suurad cudurka noocaas ah oo ilaahay kaaga caafimaadinayo cudurrada kuwa nafsaaniga iyo kuwa jidhka ku dhacay iyo nooc kastoo cudur yahayba qur-aankan daawo ayuu u yahay caalimkii la odhan jiray ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayaa wuxuu yidhi shay kasta markuu igu adkaado ama xifdiga shay gooniya markuu igu adkaada buu yidhi musxafka ayaan furaa waxaan akhriyaa suuratu yaasiin kadib xifdiga ilaahayay furaa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa la yaqaanaa kaana xaafidan xaafid weyn ay la yaabeen culimmada kuwa muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahayn ayuu ahaa raxmatullaahi caleyh qof kastoo aqoon leh aqoontu noocay doonto ha noqotee shaykhulislaam wuu la yaabay waxaana lagu tirin jiray ibnu taymiya caleyh raxmatullah inuu yahay mucjisada qarnigiisii wuxuu leeyahay sheekhaas marka shay markuu igu cuslaaday xifdigiisa ayuu yidhi musxafkaan furaabayo suuratu yaasiin ayaan akhriyaa saxaabigii jaliilka ah ee cabdullaahi ibna cabbaas radiallaahu canhuma maalin maalmaha ka mid a asagoo masaajidka fadhiya oo dadka cilmiga baraya ayaa waxaa u soo galay wiil yaroo dhallinyaro ah wiilkaasoo hadlaya haddana aan la fahmayn dadkii baa u istaagay wiilkii xaggiisa ayagoo doonaya inay masaajidka ka saaraan oo canaantaan oo garaacaan cabdullaahi ibna cabbaas ayaa weydiiyey dadkii oo wuxuu ku yidhi wiilka kan maxaa ku dhacay waxay dhaheen waa wiil 25 jir ah caqligiisii baa tegey oo wuu waashay 24 saac gudahood wuxuuna noqday sidaad u jeedid hadda oo waalidaas ayaa ku dhacday mana oga waxa uu samaynayo cabdullaahi ibna cabbaas ayaa yidhi ii soo dhoweeye hortiisay soo istaajiyeen cabdullaahi ibna cabbaas radiallaahu canhuma qacantiisa ayuu saaray madaxa wiilka kadibna wuxuu ku dul akhriyey suuratu yaasiin waxaa la yidhaahdaa suuratu yaasiin ma dhammayn ilaa uu wiilka istaagay oo ilaahay ka caafimaadiyey cudurkii hayay maskaxdiisii iyo caqligiisiina ilaahay waa u soo celiyey tabaaraka wa tacaala dadkii baa su'aal weydiiyey cabdullaahi ibna cabbaas oo waxay dhaheen maxaad ku akhrisay wiilka wuu caafimaaday markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku akhriyey suuraddaasoo nebigu uu yidhi waa qur-aanka qalbigiisa anna waxaan jeclaystay inay suuraddan ku dhex jirto qof kastoo muslima qalbigiisa allaahu akbar cilmiga casrigan ee maantaynu nool nahayna arrintaa waa ka maqhraati kacaya diraasooyin badan oo laga sameeyey maskaxda qofka insaanka ah iyo caqliga xifdigiisa iyo waxyaaluhu ka kooban yahay baaritaan lagu sameeyey arrintaa waa ka maqhraati kace caqliga waxaa ku dhex jiraya maskaxda meel gooni ah oo ilaahay ugu talagalay qofku inuu wax ku xifdiyo waxna uu ku kaydsado waxaa la yidhi meeshaas goonida ah waxay leedahay 100 dhibcood ama calaamadood oo adeegsiga qofka loogu talagalay inuu u adeegsado xagga xifdiga iyo fahamka qofka bini'aadanka wuxuu adeegsadaa 20 ka mid ah dadka qaarkoodna fahamkooda iyo xifdigooda uu sii wan yahayna ilaa 30 bay adeegsadaa oo ka mida godadkaas maskaxda ku jira ee loogu talagalay wax xifdinta iyo fahamka dadka xifdin la'aanta iyo faham darrada ilaahay ku imtixaamay wax yari ka adeegsadaan arrintaas 10 ilaa 15 ay ka adeegsadaan baa la yidhi adeegsigaas ilaahay uu ku siiyey hadduu yaraado isticmaalkiisu oo ka yaraado 10 qofkaa wuxuu isu beddelayaa qof cudurka waalida uu haleelo sidaa darteed halkaasa waxay ka fahmeen culimmadu markay awdumaan oo xirmaan duleeladaas caqliga ku jira ee loogu talagalay inuu qofku adeegsado oo ilaahay ugu talagalay xifdiga iyo fahamka inuu adeegsado markay xirmaan adeegsigoodana u yaraado suuratu yaasiin lagu akhriyo waa furmayaan oo bitaali caqligii iyo maskaxdii iyo fahmadii baa furmaysa qofkiina ilaahay waa ku caafimaadinaya fahamkiisii iyo adeegsigiisii dabiiciga ah ee loogu talagalay inuu adeegsado aaladahan fahamka ka caawinaya ee ku jira maskaxda ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u furaya
wax kale oo noo haray ma jiro oo aan ka hayn inaan dhahno alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin. qur-aankaas qiimaha badan ilaahayga caafimaad kasta noo dhex dhigay ayaa mahad iska leh. ha hilmaamin walaalne haddaad nagu cusub tahay inaad ku soo biirtid bahda badbaado. jasaakum allaahu khayra.